السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علي يحيى waxaan idinkugu talagalay fariin kooban inaan idiin soo gudbiyo. Fariintani waxay qusaysaa doorashada wadanka ka dhacaysa 15 bisha Maarso 2017 oo ah sanadkan hadda aan ku jirno waa arbacada soo socota. Doorashadaasi jaaliyada Soomaalida dhamaantood muhiim bay u tahay. Qof kasta oo la ogol yahay inuu codkiisa bixiyo ee haysta baasaboorka Nederlandka daadiisuna 18 sano ka weyn tahay fadlan codkaaga bixi. waxaa isweydiin leh codkaaga yaa siinaysaa. waxaan sharaxaad kooban ka bixinayaa inay wadankan ka jiraan laba dhinac oo ku tartama siyaasadda. dhinac waa dhinaca bidixda ah oo dhowr xisbi ay isugu yimideen, dhinaca kalena waa dhinaca midigta oo meeshaana ay dhowr xisbi isugu yimideen. haddii aan ka bilaabo dhinaca bidixda, xisbiyada ugu waaweyn ee la yaqaano waxaa ka mid ah Partij van de Arbeid oo ah xisbi shaqaalaha danahooda guud ahaan u taagnaa jiray dadka danyar. waxaa jira xisbi GroenLinks la yiraahdo oo sanadadan dambe dhinaca bidixda ah oo isagana runtii aad u dadaalaya arimaha ajnabiga guud ahaana si gooni ah u fiiriya. dhinaca midigta waxaa joogaan saddex xisbi oo hadda runtii aad u tartamayo, aad moodo marka hadaad fiirisid saadaasha la wado inay saddexda xisbi mid kamid ah uu ku guuleysan doono doorashada soo socota ee arbacada ah. waa xisbiga PVV oo ra'iisul wasaaraha wadanka uu hogaaminayo, waa xisbi la yiraahdo PVV oo runtii lagu sheego xisbiyada oo la yiraahdo extreme rechts oo ah xisbiyada dhinaca midigta ah kuwa ugu adag ama Soomaalida hadda idin soo koobay u yaqaanaan xisbiyada dadka cusuriyeey. waxaa jira xisbi kale oo isagana la yiraahdo CDA oo ku aftirsada arimaha diimaha. waxaa jira xisbi isku sheegay inuu dhexda joogo oo la yiraahdo D66 oo isagana runtii sanadadii la soo dhaafay aad u dadaalay. waxaa intaas soo saaciday oo maalmahan Soomaalida ama ajnabiga kuwa islaamka ah ee aad u hafhayeen xisbi la yiraahdo DENK oo ay lahaayeen wuxuu u doodayaa ama uu ka hadlayaa mar walba danaha dadka islaamka ah. haddii aad codkaaga bixinaysid aniga kuma siinayo tala ah xisbi hebel codkaaga si, laakiin marka hore waa codkaaga inaad bixisaa aad bay muhiim u tahay. codkaagana siisaa wixii adiga dan kugu jiro. dantaadu waxay ku jirtaa xisbiyada dhinaca bidixda ah ee aan isleeyahay waxay mar walba si gooni ah u fiiriyaan danaha dadka ajnabiga ah ama dadka wadanka ku cusub ama qaxootiga sideedaba ha ahaatee. xisbiyadaasi waxaa runtii hadda aad in codkooda la siiyo codkeen inaan siino mudan waa xisbiga Partij van de Arbeid, GroenLinks ama xisbigan cusub ee DENK la baxay oo sheegta inuu u dadaali doono marka uu baarlamaanka yimaado danaha guud ee dadka islaamka ah. waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan ku ballamaynaa in dhammaanteen arbacada soo bixinaa codkeena bixinaa. codkaagana si wixii adiga dan kugu jiro. wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.